بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo bishii saddexaad ay 19 tahay mise waa 18 waxaynu ka hadli doonaa dawladda iyo madaxweynaha Soomaaliland wasaaradda khaarijka iyo guulaha ay ka soo hooyeen xagga horumarka ayaynu ka hadli doonaa waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh سلام كبعد waxaynu sheegaynaa madaxweynaha iyo guulihii uu ka soo hooyay safarkiisii Imaaraadka iyo waxqabadka dawladda iyo wixii wadanka u dana waxa wadanka u dana baa inagana inoo dana waxqabadka dawladdu ay soo qabatay ama siyaasadda dibadda ha ahaato ama wixii horumar ah ee wadanku ku sara kacaya haatee waxaas inagana inoo dana dawladdeennana u dana magaceennana u dana taasi waa taa takriir ku xigta siyaasadeennu Soomaaliland ee madaxweynahan iyo dawladdiisu intay jireen guulahay ka soo hooyeen waynu ku hambalyeynaa hambalyaanu leenahay aynu niraahno wixii wadanka iyo dawladdeena iyo dadnimadeena iyo dadkeena u danaba inagana inoo dana dawladdeena wax qabadkeeduna waa inoo dana ma aynu siyaasad ku dabaqno oo inuu raa xisbi waa kan oo ka aynu raa oo saddex xisbi kala jiidno maaha xisbi xaakimku wuxuu soo qabtay iyo wax dawladdu soo qabatay way ka baxsan tahay siyaasadda la isku riixriixaya la isku haysto ha ka baxsanaato aniga shakhsi ahaantay waxa wadanka u soo kordhay naftaydana way u kordheen dadkuna waa ila mid taasi waa taa waxaan uga gudbayaa madaxweynaha jira iyo madaxweyne ku-xigeenka siyaasaddii dibadda guulay ka soo hooyeen ha ka soo hooyeen Afrika lafteedana way ka soo hooyeen wadankeenu wuxuu ahaa halka siyaasadda Afrika ka soo gashay Soomaaliland bay ka soo gashay xorriyadda markaynu qaadanay East Africa ka soo gashay oo Soomaaliland way ka soo gashay Ghana iyo West Africa ayay ka dhacday xorriyaddii bay heleen wax yar bay naga horeeyay xorriyaddooda siyaasadana halkii laga bilaabay halkan ay ahayd wax walba inaga ugu horeeyay aynu ugu horeeyay calankaynu ugu horeeyay horseed baynu ka ahayn Soomaaliland ka ahayd Soomaalidu xorriyaddii ay heleen hormood baynu ka ahayn Afrikana way nagu dayatay imikana dimuqraadiyadeena iyo dadnimadeena iyo siyaasadeena Afrika way nagu dayanaysaa ay nagu dayato inaga ayay sajicinteena iyo wax qabadkeena had iyo jeer waa layna weydiiyaa 27 sanood 28 sanood hawsha sideed u qabateen sideed dadka hubka uga dhigteen sideed isugu tirteen qabaa'ilka sideed isugu geyseen waa damiirkeena iyo dadnimadeena taasi dadkana waynu kaga horeynaa taasi waa ta kale siyaasaddeena Afrika aynu ku dhex galaynay sida loo soo dhaweeyay Eritrea wasiir khaarijiyaheeda wasiir khaarijiyu waxa weeye sahanka dawladnimo weeyaan haddaad wasiir khaarijiyo wadan tagay aragto waa sahan af Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa sahan halka roob ma helay halka doog ma ka baxay waa sahan
siyaasadeenniina aad iyo aad bay u dhisan tahay. waayo sida loo soo dhaweeyay madaxweynayaasha roogaga loo dhiga iyo faraawilka iyo VAB-da madaarka wasiir khaarijiyaha silitaan arkay sidii madaxweynayaasha loo soo dhaweeyay waan ku farxay ka dambeeyana sidaa la sameeyo ka ku xigana sidaa la sameeyo innaga halayna ogaado cid walba inagu dayto dawlado waaweyn oo Afrika ah ayaan halkeen timaado joogno in sooba gaadhaynba waxaynu aad iyo aad aanu soo dhaweynaya dawladaha inagu xeeran ee Afrika ah siyaasadeenni imika aad iyo aad u dhaxgashay waaqicigay gaadhay inayna beesheegin bay gaadhay inayna xasidnimo nagu jirin bay gaadhay in Afrika aynu ka mid nahay dawlad ka mid ah oo xaq u leh kursigii qaramada midoobay xaqiiqadii imikay gaadheen dadkeenuna taa ogaado معارض يا محافظ با معارض يا محافظ بتاع اللوجاد شيخ يا شريف به اللوجاد حل اوجاد السلطان يا عاقلها اوجادين دولد وي وقتي انو نوغانو وي waxa laynoo qabanayo waxaynu ku guureynay waxaynu hore ugu kacayno waxa kugu daliilay wasiir khaarijiyaha shariitayni waa sahan siyaasadeenni halkay marayso ma arkaysaan waxaan u malaynayaa anigu horta si baan u arkaa si aad iyo aad u qurux badan baan u arkaa waan ku farxayaa wixii ii yimaada inuu ka wada hadallo wixii aan ahay aad iyo aad baan u jeclaa taa waxaan ugu gudbayaa turaad waxaan maqlayay niman qabyaalada hal baabiyo loo dhalinyaro hoo isu yimid waayahay niman baa ay garto ay yeedhay nimankii sameynaya bi kale iyaba ay yeedhay war haddaad waxaa ka hadlaysaan way wanaagsan tahay waan tagay mala hadalkayga waa aragteen saddex mid baan lahaa anigu shakhsi ahaan saddexna iyagaan ku biirinay laba aan istaboolin iyo saddex istaboola labada aan istaboolin waxa weeye oon aad uga xumahay dhaqanka Soomaalida oo aad u qurux badnaa hadday labis tahay hadday fikir tahay hadday maskax ahaan tahay ayaa sii gurmaya oo meesha ka baxaya marka aanu tay ujeedadaydu ahaydeen meesha uu tagay waa taa labada aan istaboolin waxa weeye waa labada saddexda istaboolana waxa weeye kulkaad aqoontaada haysatay diintaada haysato iyo kulkaad labiskaaga iyo dadnimadaada haysato iyo kulka aqligaaga wanaagsan iyo maskaxdaada iyo maankaaga aad la kaashato inayna waxaasi ka suurin ama aanay ka lumin waalidkii ku horeeyay laba goob u xidhan jiray wixii uu talin jiray odayaasha ahaa iyo cuqaasha ahaana laba go iyo duub bay xidhan jireen kaba jaangariyana way xidhan jireen imika waxa jira dadka iga dambeeya waxay xidhanayaan ilaan dadkii aan dhalay baan arkaya waxay xidhanayaan timii xabashiga laga danayaa waa la tidcaya taalogii kubadda laga daranayaa waxa la goynayaa dhowr baa la samaysanayaa surwaalkiina waa la isku dhajiyay aroosyadiina taasay gelaysaa
saddexdaas isma daboolaan saddexdaas labada dhaqanka uun baa isdaboola midka aan weydiistay qolada dhalinyarta u badnayd rag iyo dumar waxa weeye war dhaqanka ka tagina imikana waan ku celinayaa dadku hay maqleen waxa weeyaan waxayna aynu haysano dhaqankeena aynu haysano shimbiri hadday duuto hala heesin hadduu ajnabi kuu yimaad hala duulin war ka daaya intaana dhalinyartaan idhi iyo dadka reer Soomaaliland waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa uun miibiyayaasha ka maqaa odayaal dhaqan sheeganaya oo ama suldaan sheeganaya ama caaqil sheeganaya ama taliye reer sheeganaya ama guurti dadnimo sheeganaya oo caytamaya oo inantiisa caayaya oo gabadhiisa caayaya oo gobol aanu ku noolayn caayaya oo gobol ku nool yahay caayaya taasina dadnimaday ka baxsantaho tii aan ka hadlayay dhalinyarta way ka daran tahay waa saraka hadda shaana muxuu ku hadlay ku sii dhalaa muxuu ku hadlay ku sii war waalidkeen dhul buu inooga tagi aynu dhakhtarriye ka samaysano meel la fariistiyo meel dumarku fariistaan iyo meel ragku fariistaan iyo dhul aynu marro ay inooga yeenu maxay nooga dhimanaynaa meel ilaahay leeyahay maanta ma jirtee buurta ayayday baa riya ku raacday baa lagu qaadanayaa dooxi baa lagu qaadanayaa waxa soo dhan waxay ahaayeen danta guud ee dawladda ka talisay ahayd guriga ingiriiska marka la dhisayo kumaad qorayn adaa gurigii dhisanaya kumaad qorayn dawladda ku qoreed hawlaha guud baa ku qoraa jaajuurkaad saartu maad adugu lahayd dhulka maad lahayn bal hadda u fiirsada Hargeysa halkay ka samaysnay waxaan kaga baxayaa hadalkay oo saxaafadda iyo TV-yada iyo kamarooyinka iyo waxa wax qoraaya aan ku sicinaya ama aan ku raacsanayo waan hambalyeynaya waxaan hambalyeynaya sida loo soo dhaweeyay dawladaha inoo yimaad iyo dadka inoo yimaad dawladdeenu aad bay wanaagsantahay madaxweynaha imika jira aad iyo aad buu wanaagsan yahay wadanka wax qabadkiisa lagama hor yimaad laakiin qof baad aniga adiga hor iman kartaa hadalna ay ahayn oon ceeb ahayn waad ka hor iman kartaa laakiin dhulka kama hor iman kartid oo waa lagu leeyahay dad baa kula laho waa la diidaya waxaad ka hor imanayso waa la diidaya waxaan ku soo gabagabaynayaan hadalkayga ka baxaya TV-ga qaranka iyo saxaafadda iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo wasiirada iyo saddexda ciidan qaran iyo saddexda xisbi qaran baan hambalyeynaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.